dunida maanta waxaa ka socda duulaan dhan walba oo ku wajahan diinteena suuban ee islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiinta ah ee nabadgelyada dhowrsanaanta iyo dhiig wadaagnimada ee baweyne uu dhex dhigay. maxaadan ogeyn oo ka socda dunida 80 dumar ah oo muslimiin ah oo loo xaraashay diinteena sawir xun in looga bixiyo iyo sira kale oo aadan ogeyn ayaan maqaalkan kugula wadaagi doonaa ee nala joogila dhamaadka. like saar muuqaalka waxay naga caawinaysaa inuu gaaro saaxiibo badan siina sheergare oo la wadaag saaxiibadaada koontada Facebook. dhacdooyinka dunida ee beegsiga dadka muslimiinta ah iyo diinteena suuban maalinba maalinta ka dambaysa waa mid weji cusub ku imaanaysa, waxaana hore loo ogaa in diinta fasiraado qaldan laga bixiyay qarashaadna lagu bixiyo faafinta Kirishtanka iyo waxyaabaha kale ee diin ahaanta u aaminsan yihiin kuwa ee baweyne beeniyay si loo duubsado dadka quluubtooda ay jilicsan tahay. maanta se sheekada halkaasi ha ka eegin, waa la iskala soo tagay oo ma joogto. si aad u fahanto ujeeddada iyo dulucda hadalkayga aan ku siiyo tusaale la taaban karo iyo sharaxaadda arrin la yaab leh oo ka dhacday dalka Hindiya oo muslimiin aad u fara badan ay ku nool yihiin. sida ay baahisay wakaaladda wararka AFP, haween muslimiin oo aad u fara badan ayaa lagu xaraashay barta GitHub iyagoo aan ogeyn, waxaana arrintan fuliyay koox la rumaysan yahay inay qaabilsan yihiin sumcad dilidda haweenka muslimiinta ah iyo suurad xumeyntooda. sawirada in ka badan 80 dumar ah oo lagu daabacay barta GitHub waxaa ciwaan looga dhigay Solid Deal of the Day. Soomaali ahaan kuma habboona sharaxaadda ciwaankan oo dhaqankeena waa mid ceeb ah. ereyga saalise waa sumcad dilid. haddii aan si kale u iraahdo micnahana si kooban aan kuugu sheego, waxa uu noqonayaa micnaha ciwaankan suuqgeynta hablaha boggan lagu xaraashay. Hana Muhsin Qaan oo ah duuliye diyaaradeed ayaa toddobaadkii hore waxaa wargeyska ay u sheegtay in saaxiibadeed ay u soo dirtay bartan lagu daabacay sawirada dumarka. sawirka afraad waxa uu ahaa keyga, waxay ii xaraasheen sidii inaan addoon ahay ayay u sheegtay AFP. ilaa iyo maalinta aan arkay sawirkan aad ayaan u caraysanahay ayay hadalkeeda sii raacisay. Saaniya Ahmed waa 34 jir, waa haweeney muslimada. iyana toddobaadkii hore ayay aragtay in lagu iibinayo bartan GitHub ee online-ka ah, waxayna farta ku fiiqaysaa waxay ugu yeertay guutada internetka ee xagjiriinta Yuhuudda ah oo sanadihii dambe sii badanayay isla markaana weerar ku hayay dadka muslimiinta ah. GitHub waxay sheegtay in hadda ay xanibtay akoonnada sawiradan lagu daabacay oo ay xustay inay ku xadgudbeen siyaasadeeda ku aadan dhibaataynta, takoorka iyo kicinta bulshada. booliiska magaalada Delhi ayaa xareeyay dacwado, laakiin waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn shakhsiyaadka sida rasmi ah uga dambeeyay dhibaataynta gabdhaha muslimiinta iyo ku kicitaanka falkani. sheekadan waa caddayn qof walba ugu filan duulaanka dhinac walba leh ee lagu hayo muslimiinta, waana bidhaaminta weji kale oo kuwa ee baweyne beeniye ay doonayaan in diinteenna ay ku sumcad dilaan. haddaba dardaarankeenu waa feejignaan iyo ka hortagga cadowga diinteenna suuban. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. si gooni ah waxaan ku leeyahay mahadsanid. haddii ilaa iyo dhammaadka sheekadan aad inala soo gaartay like the page-ka, siina sheergare muuqaalkan. nabad ah u daawade.